madaxa midowga Yurub u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda ayaa sheegay in midowga Yurub inay indhaha ka qarsan doonin hanjabaadda halista ah ee ka imaaneysa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ah in dagaalka Ukraine u adeegsan doonaan hubka nukliyeerka. Hadalka Putin ayaa imaanaya xilli Ruushka uu bilaabay dhaqdhaqaaq uu qayb ahaan ciidamadiisa uu heegan ku gelinayo si ay uga tallaabaan dhinaca afarta gobol ee ka tirsan Ukraine ee uu Ruushka qabsaday. Madaxweyne Putin waxa uu sheegay in heeganka uu saameyn doono muwaadiniinta ka midka ah ciidanka kaydka ah. Putin waxa uu sheegay in reer galbeedka ay u handadaan Ruushka balse Ruushka uu haysto hub badan oo uu isku difaaci karo. Putin oo dadweynaha kala hadlay telefishinka qaranka ayaa sheegay in uu qaadi doono tallaabo kasta oo uu ku difaaco shacabka ku nool gobolka Donbas. Wuxuu amar ku bixiyay in sare loo qaado dhaqaalaha si loo xoojiyo awoodda hagaajinta ee hubka.